kusoo dhawaada daawadayaal warbixin laga qoray dalka Itoobiya oo ciwaan looga dhigay Itoobiya ma dib ayay u socotaa. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wajahaya caqabado badan oo ay tahay inuu ka gudbo. Sanadan ka hor waxaa jirta rajo weyn oo ay qabeen dadka reer Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa xukunka qabtay waxa uuna markiiba sameeyay isbeddello waaweyn kuwaasi oo wax weyn ka bedelay siyaasadda dalkaasi Itoobiya. balse dhowr bilood kadib waxaa dib u bilowday qalalaase iyo waliba xiisado u dhaxeeya qowmiyadaha kuwaasi oo caqabad ku ah isbeddeladii dalkaasi ka dhacay. dibadbaxyada ayaa ka bilowday sanadkii 2015 gobolka dalkaasi ugu weyn ee Oromiya oo ay degaan shacabka Oromadu kuwaasi oo sanooyin badan ka cabanayay in dawladihii dalkaasi soo maray ay gacan bidixeeyeen dhaqaalahaan iyo waliba siyaasad ahaanba. bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 dibadbaxyadu waxay ku baaheen 3 gobol oo kale oo dalkaasi ka mid ah waxayna Itoobiya gashay xaalad deganaansho la'aan oo aan horay loo arag. waxaana guul darro ku dhamaaday 2 xaaladood oo degdeg ah oo dalkaasi lagu soo rogay. bishii February ee sanadkii 2018 ayaa waxaa si lama filaan ah isu casilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Haile Mariam Desalegn kadib 4 sano oo dalkaasi ay ka dhacayeen dibadbaxyo rabshado wata. dalkaasi ayaana qarka u fuulay in uu burburo. balse isbahaysiga talada dalkaasi haya ee EPRDF ayaan kulan degdeg ah oo ay yeeshaan 2 bishii Abriil ee sanadkii 2018 waxay Abiy u doorteen inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee dalkaasi. isbeddel Abiy oo ah nin rugcada ah oo ciidan ah waxna ku soo bartay dalalka UK iyo Mareykanka ayaa talada dalkaasi qabtay asaga oo ku baaqay wadajir iyo waliba wax wada qabsi. dhowr maalmood gudahood ayaa xabsiga laga sii daayay kumanaan maxaabiis oo ay ka mid ahaayeen hogaamiyaal mucaaradaha. waxa uuna dalkaasi ku soo dhaweeyay kooxihii hubaysnaa kuwaasi oo dalka laga mamnuucay asagoo sidoo kale kor u qaaday xorriyadda saxaafadda. dibadbaxyo waaweyn kadib ayuu xisbiga talada dalkaasi hay ee EPRDF Abiy u magacaabay ra'iisul wasaaraha Itoobiya. 9 bishii Luulyo ayuu heshiis nabadeed la siixday dalka ay dariska yihiin Eritrea. waxa uuna soo afjaray muranka dhanka xuduudaha u dhaxeeyay labada dal ee socday 20 sano kumanaan qofna ay ku nafwaayeen. muddo 20 sano ah ayaa markii ugu horeysay waxa dadka loo ogolaaday in ay labada dal u kala safraan. ganacsiga ayaana albaabada loo furay waxaana dib u midoobay qoysaskii kala abaaday. waxaa dalka Itoobiya ka dhaqan galay isbeddello la taaban karo oo ay dadku ku diirsadeen heer dadka qaar ay rasuul ku tilmaameen Abiy Ahmed. isku daydil balse markiiba dhibaato ayaa ka bilaabatay dalka Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka badbaaday weerar bamba gacmeed oo loo beegsaday waxayna ku qaraxday meel dhowr kiiloomitir u jirta halkii uu kula hadlayay dadweyne isugu soo baxay Addis Ababa. dhowr bilood kadib bishii Oktoobar dhexdeedii ayaa 10 askar oo hubaysani waxay socod ku tageen aqalka madaxtooyada iyaga oo dalbanayay in mushaarka loo kordhiyo. Abiy Ahmed ayaa xakameeyay xaaladda oo jimicsi la sameeyay askartan asagoo oo markii dambana sawir la galay. maalmo kadib ayaa Abiy waxa uu ku dhawaaqay in askartaasi ay doonayeen inay isaga dilaan waxayna ahayd calaamad muujin karaysay waxyaabaha soo socda. kala qaybsanaan isbeddeladiisa xawliyo ku socda ee uu ka sameeyay gudaha dalka Itoobiya ayaa waxa ka carooday qaar ka tirsan xisbiga talada haya oo ka kooban 4 xisbi qowmiyadeed. mucaaradka ugu xoog badan ayaa uga yimid dhanka gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya. xisbiga talada gobolkaasi haya ee TPLF ayaa 10 sano gacanta ku hayay militariga laamaha ammaanka iyo dhaqaalaha dalkaasi. Tigreega ayaa xuduudda la Eritrea siyaasiyiin iyo waliba dadka deegaankaasi ayaana si adag uga soo horjeestay heshiiska nabadeed ayagoo ra'iisul wasaaraha ku eedeeyay in uu dhulkooda bixinayo. gobolkaasi ayaa dadkiisu ay dhan yihiin 6% guud ahaan dalka Itoobiya. siyaasiyiintu wax ay aad uga cadhoodeen dhowr sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa militariga iyo sirdoonka oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo waliba gobol ka dhanaha xuquuqda aadanaha. si kastaba ha ahaatee caqabada ugu weyn ayaa ah ku dhawaad 3 milyan oo qof oo sanad gudihii ka barakacday gudaha dalka Itoobiya. dadkaasi intooda badan waxa ay ka carareen guryahooda kadib markii ay soo cusboonaadeen isku dhacyada qowmiyadeed ee ka dhashay khilaafka dhanka xuduudaha iyo waliba dhul daaqsimeedka. khatarta baraha bulshada kadib markii la ogolaaday xorriyadda hadalka
ayaa waxaa baraha bulshada ka bilowday aflagaado iyo weliba in siyaasiyiintu ay ciyaar ka dhigtaan soodimaha u dhaxeeya gobolada federaalka ee Itoobiya. weerarada argoosiga ee u dhaxeeya bulshooyinka ayaa noqday tusbax furtay. kumanaan bunduq iyo weliba hub kale ayay boolisku soo qabteen sanadkii hore. arrintan ayaa ah calaamad muujinaysa in qowmiyaduhu ay goor kasta hubka qaadan karaan. dilalkii dhawaan dhacay ee lagu laayay madaxweynihii gobolka Amxaarada, taliyihii ciidamada Itoobiya iyo 3 sarkaal oo kale xiisada qowmiyadeed ayaa kiciyay xiisada qowmiyadeed. xukuumadda ayaana xirtay khadka internetka arrintaasi oo looga gol leeyahay in aanay faafin wararka xanafta leh si aanay xaaladda u sii cakirmin ama uga sii darin. xiisada qowmiyadaha ka dhex taagan iyo weliba barakaca ayaa xukuumadda ku kaliftay in ay joojiso qorshaheedii ku aadanaa in la qabto tirakoob qaran sanadkan gudihiisa. waana markii saddexaad ee dib loo dhigayo tirakoobka sababa dhanka ammaanka awgood. doorashooyinka ugu horeeya ee la qabanayo inta uu xukunka hayay Abiy Ahmed ayaa dhacaya bisha May ee sanadka dambe. balse dalka ayaa si weyn ugu kala qaybsan in doorashooyinka ay ku dhici karaan xaaladda uu maanta dalku ku jiro. dadka wax falanqeeya ayaa qaba in mustaqbalka dalkaasi uu ku xiran yahay sida uu Abiy Ahmed ula dhaqmo qolyaha lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen qalalaasihii ugu dambeeyay. waxaa jirta khatar laga cabsi qab oo ah in dib loogu noqdo maalmihii dad badan xabsiga lagu guri jiray. jihada ay aadayso Itoobiya waxa ay saameyn ku yeelan doontaa malaayiin qof oo dalal badan ku nool. kusoo dhawaada dhageystayaal maqaal laga qoray isku dayga afgambi ee dalka Itoobiya ka dhacay. maqaalkan waxaa qoray Cabdulcasiis Ismaaciil Yuusuf waxaana uga hadlayaa arrimihii dhacay iyo Soomaalida wax la gudboon. maqaalkuna waxa uu ku bilaabanayaa sida tan: arrintii Itoobiya ka dhacday iyo sida mowqifka Soomaalida inuu noqdo ay tahay. dilkii Sabtida iyo isbaacsigii ka dambeeyay waxaa saldhig u ahaa xukun iyo weliba tartanka kooxaha Itoobiya. doorka iyo weliba saameynta Soomaalidu ku yeelan karto waqtigan la joogo wuu yar yahay. sababtu waxa weeye dicifnimada ka jirta Soomaali galbeed dhinaca askareed, siyaasadeed, maamul, hay'ado dhismo waaweyn, dhaqaale iyo weliba abaabulsanaan shacbi intaba. tusaale maamulka magaalada Diridhaba wuxuu u qaybsan yahay 40 iyo 20. labada 40 waxa kala leh Soomaali iyo Oromo, 20ka kalena dadka kale ayaa leh. Soomaalidu xafiisyada booliska iyo ammaanka midnaba kama muuqdaan. dhalinyarada Soomaaliyeed ee iskoolada ka qalin jabiya Jigjiga iyo Djibouti ayay shaqo u raadsadaan. kolka Soomaali waxa la gudboon in ay ka fijignaato in xukuumadda Abiy ay ka gacan maroojiso waxa yar ee isbedelkii kal hore uu suura galiyay. waxay u badan tahay maamulka Abiy Ahmed madaxa u yahay in ay isku dayaan isdilkan dhacay uu ku marmarsiiyoodo xuquuqaha yar ee la helay in uu baabi'iyo. marnaba ilaa aqbala ma aha xitaa in Amxaarada loo riixayo falkan in maamulka uu ku xadgudbo. dad muslimiin ayaa nahay, cadaawad iyo nacayb aan qoom u qabno in ay cadaaladana weydaariso ma qumano. waxaan ogsoonahay in xukuumadaha Itoobiya caado u leeyihiin hadallo iyo ballamo wanaagsan marka hore ay la yimaadaan kadibna cadaadis loo bedelo. xukuumaddii Mengistu waa la ogsoon yahay dhalinyaradii siday u soo dhaweysay markii hore. waxaa ka dambeeyay wixii lagu magacaabay argagixisada cas ama Red Terror ay dhalinyaro iyo dad kale fara badan sida foosha xun loogu mariyay. sidoo kale xukuumaddii Malis 1991 shirkii Carte ee Djibouti wajigii ay Soomaali tustay ay u ballan qaaday demokrasi iyo wanaag waa la og yahay. waxshinimadii ay la timid gaar ahaan Soomaali waxay u geysatay waa la xusuusan yahay. maamulka Abiy in jidkaasi foosha xun uu qaado xukun maroorsi power grab isku dayo aad ay suuragal u tahay. Abiy mar hore ayuu Soomaali galbeed xukun degdeg ahaa ku soo rogay. wuxuu sabab ka dhigtay markii Soomaalida Jigjiga dadka aan Soomaalida ahayn ku gadoodi jireen. Abiy marxaladda Addis Ababa uu Amxaarada iyo Oromada isku haysta wax laga weydiiyay jawaabtiisii soo dhaxgeliyay in magaalada xataa Soomaali ku nooshahay. wuxuu waliba tilmaamay xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay. hadalkaasi ayuu ku sheegay in Soomaali galbeed 31 askari oo federaal ah uu geeyay. tirada in ay 31 ahayd ma hubo, hase yeeshee askar aad u fara badan inuu dhulka ku daadiyay waa la ogsoon yahay. wuxuu kaloo hadalka ku sheegay in 47 ruux oo lagu dacweeyay in dhibaatada Jigjiga kal hore ka dhacday ay ku lug lahaayeen ay maxkamad sugayaan. arrinta Addis Ababa ayaa laga hadlayay ee danta uu ka lahaa inuu arrinta Soomaali soo dhaxgeliyo macadda.
sidaasi daraadeed maamulka Mustafa iyo xooga kale ee Soomaali galbeed waa inay isdiyaariyaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii dadkooda iyo dalkooda ay u difaacan lahaayeen kooxo Soomaali ah ayaa kulay isku day in ay fursadan ka faa'iideystaan oo ay maamulka Mustafa dhibaato u maleegaan dacweyn iyo jaajusnimo ku kici doona shacbiga Soomaaliyeed calooshada u shaqeystayaasha ay iska jiraan maamulka Mustafa dhaliilo badan ayuu leeyahay maanta se khatartu waxay ka jirtaa dhinaca Abiy iyo kooxdiisa xooga kale ee saaxada jooga waa on alif arinta Itoobiya ka taagan waa in jabhadda iyo maamulka Mustafa nabadgeliyada dadka iyo dhulka ka wada shaqeeyaan oo aynan iyagu isku mashquulin anigu shakhsi ahaan madaxda jabhaddu falalka ay ku kaceen asmara dhawaanahanba su'aalo ayaan ka qabaa xornimo dhab loo qaado ayay leedahay hawl adagoo loo galo ayay rabtaa hoggaan dhabaha garanaya hawsha fulin kara oo daacadaha ayay u baahan tahay waa in si cad looga doodaa in dhabaha iyo hawsha ay madaxda jabhaddu doorteen ay Soomaali galbeed xornimo gaadhsiin karto Soomaali weyn waa inay fahantaa xumaanta iyo wanaagga Soomaali galbeed waa xumaan ama waa wanaag Soomaaliyeed ma aha arrin qabiil qura saamaysa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qabyaalada ku shaqeysta ee ummadda dulliga iyo ceebta ku riday Ilaahay ha ka yaabaan xinka jalaafada iyo u adeegida gumaysiga ha joojiyaan dadweynaha Soomaaliyeed walaalihiina u halgamaya sharaftooda iyo madax banaanidooda garab siiya Soomaaliyana xooga shisheeye ee wanaaga u haynin ee dantooda dhulka u jooga sidii loo saari lahaa hawsheeda hala galo dhibaatada Soomaali haysata Soomaali baa xallin karta rabbi ka sakow xukuumadda Djibouti mas'uuliyad khaas ah ayaa saaran in wanaaga Soomaali iyo Canfar ay ka shaqeyso labada shacab daaq iyo biyo daraadeed way isugu dhici karaan arintaasi qabiilooyin Soomaali ayaa ka dhaxdhacda hase yeeshee Soomaali iyo Canfar wax aan la xallin karin si cadaalad ah ma dhaxyaalo wanaag ay Canfar Soomaali ka heli weyday Itoobiya iyo Eritrea kama helayso labadan ummadood wax badan ayay wadaagaan jaarnimo wanaagsan siday u heli lahaayeen waa inay ka shaqeeyaan xukuumadda Djibouti geeska Afrika nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa talaabooyin khatar ku ah iska ilaaliso saldhigyo Mareykan Faransiis iyo Shiine nabadgelyo la'aan ayay u keenayaan arinta kale ee ay xukuumadda Djibouti inay ka digtoonaato tahay waa shidaalka Soomaali galbeed ee ay Itoobiya iyo Shiinaha inay dhacaan rabaan shidaalkaasi waa shidaal Soomaali waa shidaal Djibouti maamulka Djibouti ha iska ilaaliyo boobka inuu ka qayb qaato Soomaaliya isku duubni ayaa khatarta laga gudbi karaa kala qaybsanaan iyo isximin waa lagu halaagmi Ilaah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa qaadiray qulubta ummadda hamideeyo wabillahi tawfiiq farintani waxa qoray Cabdicaziz Yuusuf Ismaaciil waxaana idin codaya anigoo aha Barraa'il Kacase mahadsanidin daawadayaal